dalka oo maanta magaalada Muqdisho ku kulmay ayaa ku eedeeyay dowladda federaalka in sanadkan 2016 ku guuldareysatay waqtigii loogu talagalay doorashada dib u dhaca faraha badan ee doorashada mar ay ka hadlayeen waxa ay sheegeen murashaxiintan in dib u dhacaasi mas'uuliyadeeda ay leedahay dowladda Soomaaliya baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya ayay ugu yeereen inuu baabi'iyo wax walba aan dastuurka ku jirin oo ay badasho horay u gaareen in ka badan 10 musharax madaxweyne oo maanta kula hadlay wariyaasha Muqdisho ayaa sheegay in 28 bishan mar afraad ay doorashadu dib u dhacday inay tahay nasiib darro marka la eego hanka siyaasadeed ee dowladaha caalamku ay ka leeyihiin Soomaaliya musharaxiinta kulmay waxa ay sheegeen in mas'uuliyiinta dowladda federaalku ay ku fashilmeen sida ay qabaan in dalkan ay ka dhacdo doorasho dadban iyadoo aan musuq la gelin isagoo akhrinayay war-saxaafadeed ay ku mideysnaayeen xubnaha maanta kulmay musharax madaxweyne Maxamed Cabdirasaaq waxa uu qabaa in madaxda dowladda federaalku aysan iminka shacabka u shaqeyn waa marka la eego qaabka hadda ay u marayaan howlihii dowladda dalku wuxuu marayaa xilli xasaasi ah waxaana cadaatay in madaxda hadda joogta ay ku guuldareysteen xilkii loo igmaday oo ay ka mid ahayd inay dalka gaarsiiyaan doorasho sanadkan gudihiisa shaki kuma jiro in madaxdu ay ku mashquuleen danahooda gaarka ah iyo sidii ay hoggaanka dalka dib ugu soo noqon lahaayeen kuna fashilmeen dantii guud iyo xaqiijinta inay qabsoonto doorasho xalaal ah madaxdu waxay horseedeen tacadiyada soo socda waxay doorashooyinkii tartanka xubnaha baarlamaanka ay u bedeleen tartan boob dhac musuqmaasuq iyo tacadiyo kale oo aan taariikhda Soomaaliya hore u soo marin gaarsiiyeyna shacabku inay kala qaadaan shaki iyo xumaan u baahan waqti dheer inay kaga dawoobaan waxaana nasiib darro ah in laga xaqiray dhibanayaasha dhageysiga dacwooyinkooda musharaxiinta madal jooga ahaa waxa kamid ahaa Dr. Cabdinaasir Cabdulla Maxamed waxa uu isaguna qabaa in madaxda dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyadu ay ku mashquuleen siyaasadda dalka iminka uu wajahayo Dr. Cabdinaasir ayaa sheegay in dhankooda musharaxiintu ay la shaqeyn doonaan cid kasta oo doonaysa u gurmashada dadka abaaraysan ee gobolada dalka jooga la sameeyo gargaar ama gurmad degdeg ah ee dowladdu horkacayso anaguna ugu taageerno laakiin waxaan isleenahay dowladda kaliya lagu hadlayn maadaama dowladda ay ku mashquulshay doorasho iyo codradin in shacabka Soomaaliyeed bulshada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ayagu u guntadaan qof walbana meesha uu ka gaari karo uu ka gaaro anaguna waajibana saaran maadaama aan rabno inaan dowladda hogaamino inaan arrintaas u istaagno xaq bay tahay baaqaasna gaarsiino ummadda Soomaaliyeed hadda kaliyana ma ahan meel walba aan tagno way sheegaynay Facebook lagu sheegay Twitter lagu sheegay warbixinadii kale aan bixinay ayaa lagu sheegay laakiin waa arrin taagan abaarta iyo colaadda joogtada inaan ka hadalno qof walbana waajib ay ku tahay wanaagsantahay qaar kamid ah musharaxiinta maanta ku kulmay magaalada Muqdisho ee caasimada dalka ayaa u soo jeediyay xarunta golaha shacabka mudanayaasha ku kulmaya ee baarlamaanka Soomaaliya inay ka doodaan lacagta $30,000 ah ee lagu xijeeyay mas'uul kasta oo doonaya inuu u tartamo xilka madaxtinimo ee Soomaaliya hadda waxaa dhiman in la doorto mudanayaal tiradoodu ay gaarayso ilaa iyo 30 xildhibaan 19 kamid ah waa aqalka hoose halka 12 kalena ay yihiin aqalka